marka ay dadka gaalada ay u dabaaldegayaan waxay uga dabaaldegaan laba nooc labadubana waxay ku dhammaadaan in laysu galmoodo macnaha ereyga maalinta ugu leeyahay Valentine's Day Love Day waa maalintii zinada adduunka ninka dhalinyarada markaan Soomaali ahaan u hadlayno ee islaamka intuu gabar kaxeeyo qada soo siiyo caloosh u soo bixiyo guriga intuu keeno inta badan iska bax ma dhahay wuxuu ka rabaa waana qasab in wax ka helo midabka cadaanka iyo guduudka oo caanaha iyo dhiiga ahi waa meesha maantay ay ka yimaadeen ubaxa loo isticmaalo Valentine's Day oo ah guduud iyo cadaan ama dharka loo xirtaba xafladaas macnaheedu wuxuu ahaa ama loogu dabaaldegi jiray dadka cawaanta ugu dabaaldegi jireen waxaa la dhihi jiray Lupercali inuu yahay ilaahi galmada iyo dhalmada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يسود وهذا الله إني بركة ملك استود أدونك جوكتان إمر داري عفاد الله إني سيو وإن كجمع هذا علينا قابك إنه رجع قاضي سنة ولا له أسود دمان تدو أسود ويننا وحن عطسنا يا واسدات كسو أركتين تاملتك إيوانك برامجكو وبرامج أدو حساب بدرمانته وحن جعلا لها إن لسيشة جريو لا أجنا لوتها إن شاء الله تعالى لا ضوبة إذا كأله maanta sidaad aragtaan waxaa marti inoo سفيان شيخ أحمد بروفيسور سودو مركوري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وريحيري ودوهي وحان كلهم سلام يا دماما بهذا سفير كإسلام كحرا وما سنتي الله أكبر كي سفيانو مانتا وحان جعلاني إن أن بلشة سوماليات لو ذاقنو قضب أن إسنيري waa loo baahan yahay oo bulshada Soomaaliyeed da'yartooda way anfacayaan waano iyo waxgalna way u noqon kartaa qodobkaasi sanadkii horena mar waan ka hadalnay sanadkaana waxaan jeclaanay 2022 inaan ku celino qodobkaasi wuxuu yahay in badan markii la gaaro Febraayo dadka jooga caalamka aan Soomaalida ama wadamadan islaamka ahayn jooga siba xataa dadka muslimiinta ee Asiankana waa lagu arkaa waxaa la arkaa inta badan ubaxyo Valentine Day ay ku qoran tahay wadooyinka lagu gadaa maxaa la yiraahdaa guryaha la isku keenaa nimankiya wata gabdhihiya wata masajida soo dhacaya la soo tiraa marka barnaamijkaas ayaan jeclaanay maanta Valentine Day maxaad ahayd xagee naga soo gashay su'aalo badan ayaan waxaan jeclaanay inaan maanta la wadaagno bulshada Soomaaliyeed سؤالها سون جعلاني إن نويدينو بروفيسور سفيان شيخ أحمد وقيان صوماليات إن بدنا قربها كنا ولا واحد بدنا كوك أرماه دعية ماشي كتير منا طبعا أوك أيان جعلاني إن فلنتين ضد بدن أو حاجرة هاي راعة أما أن واحد بدنا كوجين مركي فلنتين اللي يراهدو لكن وها يستأني تاي واحد إسك شرعي أو إسك عادي يضد يعني وحاجرة أيكو أوك غلط إني تاينا دبال دقية فرحية نوان استعلنا هاي هو بحيل السوقديو غوريها لسوق تغيو حمان لا سمينيو waxyaabo badan jira marka anu warkan ku sii dheereynaynin Sufyaano marka horeysa maadaama arinku jacayl uu taabanayo waxaan noo fasirsaa waa maxay jacayl horta marka koowaad jacaylka macnihiisu waa maxay soo dhaw marka warisa jacaylka waxa la yiraahdaa way badan yahay oo kala jira waxa jira jacayl Allah subhanahu wa ta'ala oo bini aadamka uu dadka ilaahay aaminsan ay u qabaan Allah subhanahu wa ta'ala jacaylkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam jacayl xubbu dunya xubbu awlaad waxa jira marka jacayl loo qabo ama jacaylka ka dhaxeeya nin iyo naag ka dhaxeeya oo nin iyo naag xiriir ka dhaxeeyo ama ninka naagtan uu rabo inuu guursado ama uu la jiifto qaabkay ratabaha ahaatee jacayla waa ku jeclaha markuu yiraahdo macnaheedu waxa weeyaan waxaan rabaa inaan ku galmoodo marka meeshaas marka lagu ekeeyo nin iyo naag dhexdooda oo ay tahay sheekadaas sheeko ku saabsan ninkaani naagtan inuu damcay ama naagtu ninka damcday jacayl waa galmo waa maasanta Allah ku barakeeyo waa ku maasanta soo koobtay dabcan commentigiina waan ka dareemay doonaa inaad barnaamijka uu Sufyaan nala daadinayo maanta inaad wax badan ra'yi ka qabtaan idanka alle si shaqreeya oo lag saar idanka alle ustaad marka soo dhawo waxaan ka rabnaa inaan ku iraahno waa maxay Valentine Day xagee ka timid soo dhawo ugu horeyn waxaan rabnaa bulshada inaan la wadaagno Valentine's Day asalkeedu xaguu ka yimid magaca Valentine waxa ay qaadatay qarnigii shanaad adigu 100 sano ka hor intii nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilaahay soo saarin ayaa magacaas loo bixiyay oo kaniisadda Kirishtaanku ay qaadatay marka aan dib uga laabno xagee ka timid markii hore
waxaa la dhihi jiray xafladan ama dabaaldegan waxaa la dhihi jiray markii hore waxaa la dhihi jiray waxaa loogu magacaabi jiray allah ilaah la yiraahdo Lubricali. xafladda magaceedana waxaa la dhihi jiray Lubricali. Lubricali waxay ahayd xaflad ay u dabaaldegaan dadka cawaanta ah. waxay isugu soo bixi jireen banaanka maalintaas xoolo badan ayaa la qali jiray, dhiigga meelaa lagu shubi jiray, caanaha xoolahana meelaa lagu shubi jiray, banaanka ayaa la isugu imaan jiray. banaanka marka la isugu yimaado gabdhaha yaryarka ah ama gabdhaha intooda aan duqoobin magacyadooda ayaa waxaa lagu ridi jiray meel, nin walbaaba xabad u kala bixi jiray. xabadaas uu kala baxo waxa uu samey jiray in uu isla meeshaas ku orgeeyo ama ku fuulo ama ku galmoodo ayadoo loo wada jeedo. waxay marka hore ku qubaysan jireen dhiiggaas markay isku galmoonayaan, hadhow markay tegayaan caanihii ay iskaga dhaqi jireen. midabka cadaanka iyo guduudka oo caanaha iyo dhiigga ahi waa meesha maantay ay ka yimaadeen ubaxa loo isticmaalo Valentine's Day oo ah guduud iyo cadaan ama dharka loo xirtaba. xafladaas macnaheedu wuxuu ahaa ama loogu dabaaldegi jiray dadka cawaanta ugu dabaaldegi jireen. waxaa la dhihi jiray Lubricali inuu yahay ilaahi galmada iyo dhalmada, ilaahi galmada iyo dhalmada. waxaana laga bari jiray ilaahaasi inuu galmadana u wanaajiyo, dhalmo badanna siiyo. waxaa la dhihi jiray God of fertility, toward of evil spirit and infertility. ilaahi ka difaacayay dhibaatooyinka ay la socdaan inuu qofku dhali waayo ama galmadu u saxnaa weyso oo uu ka caajiso. sidaasay xafladaasi ahayd. waxaa u dabaaldegi jiray cawaanta dadkii ahaa. aan soo socono marka waa macnaha arrintaasi marka waxaad u fahmaysaa haddii aad qof islaam tahay waa arrin diiniya. ilaah ayaa loo dabaaldegi jiray Lubricali. xafladan waxaa la jiray Lubricali. halkaas ayay ka timid wariye xiray. taariikhdeeda saxda ahi waa sidaas. aan ku soo xira marka oo aan ku soo dhajiyo sida maanta Valentine's loogu bixiyay. taariikhda waxay qortaa qarnigii saddexaad ama qarnigii labaad iyo saddexaad dhexdooda ayaa waxaa la dilay boqorkii la dhihi jiray Claudius II, Claudiuskii labaad ee Rome xukumay ayaa wuxuu dilay nin la dhihi jiray Saint Valentine ama Valentine la dhihi jiray. marka saint ma uusan ahayn, awliye ma uusan ahayn. Valentine sababta loo dilay waxay ahayd boqorka ayaa wuxuu amray in nimanka ciidamada noqonaya, waa boqorka waxaa laga wadaa Claudius II, wuxuu amray nimanka ciidamada noqonaya inaysan guursanin. waayo waxaa la arkay haddii ninkii uu xaas leeyahay, xaaskii ayuu jacaylkii xaaska ayaa ka reebay inuu wadankii u adeego oo ciidanka uu ka mid noqdo. nin naag guriga u joogto ku raaxaysanaya ma raba inuu ciidan noqdo, sidaasuu fahmay. sidaa daraadeed wuxuu mamnuucay in nimanka askarta loo guuriyo oo dhallinyarado dhan ay guursadaan ayuu mamnuucay. Claudius wuxuu ahaa ninka boqorka. Saint Valentine ama Valentine ninka la yiraahdo waqtiga saint ma ahayn, si qarsoodiya ayuu isugu guuri jiray gabdhaha iyo wiilasha. wuu ogaaday Claudius sidii meel public loogu dilay. hore u soo soco qarnigii shanaad ayaa waxaa go'aansaday Gelasius, Pope Gelasius ninka kaniisadda Kirishtaanka xukumay ayaa wuxuu go'aansaday in ninka isaga ah loo sameeyo ama laga dhigo awliyo maadaama uu ku dhintay ayagu say arkeen uu ahaa nin shahiida. marka kaniisadda fikirkeeda la fiiriyo waxay u dabaaldegaan marka Roman Catholic Church oo macnaha Rome ku taala waxay u dabaaldegaan 14 bisha Febraayo. taariikhdii hore loo dabaaldegi jiray waxay 15 marka cawaanta ay dabaaldegayso. hal maalin ay ka bedeleen, magaciina waa ka bedeleen. sidoo kaleeto Roman Church saas u dabaaldegtaa. groupkaas kaleeto oo diinta Kirishtaanka haysto oo Orthodox la yiraahdo Russia, Slavic countries waxay u dabaaldegaan July 6 ay u dabaaldegaan Saint Valentine. ayaguna waa aqoonsadeen inuu yahay awliyo. maxaa loo aqoonsada marka ujeedadii laga lahaas maxay ahayd? waxay ahayd maadaama dadkaasi cawaan ay yihiin la rabay inay ku soo biiraan diinta gaalada oo Christian ay noqdaan, in la sameeyo in loo dhexgeliyo dhaqankoodii xafladoodii maalinta ay ahayd in loo dhexgeliyo diintii Christianity loo dhexgeliyo. oo maxaa see loogu dhexgelinayaa? waxaa la yiri maanta maadaama aad u dabaaldegtaan maalinta galmada, xoogaha waa dhib badanta arrintaani, waxaan ka dhigaynaa maalinta jacaylka, waxaan siinaynaa awliyada la yiraahdo Saint Valentine, isaga ayaan u dabaaldegaynaa maalinta, isaga ayaan baryaynaa. waayo sidaad ogtihiinba kaniisadda ama kaniisadaha gaaladu waxay leeyihiin awliyo ay baryaan oo ilaahay ku xiriiriya ayay leeyihiin. marka arrintaa iyada ahi sidaas ayay u timid in awliyadaas la sameeyo, in dadkaas cawaanta ahi ay soo galaan diinta Christianity-ga. arrintaas ayay ku timid Saint Valentine, magacaan halkaas uu ka yimid. maanta marka waqtigan xaadirka oo hadda la joogo waxaa laga laabtay 1969kii
kaniisadda Catholic waxay ka laabatay baryihii la bari jiray St Valentine because taariikhdiisii la isku qalday oo dood dheer ayay kaniisaddu gashay. Kaniisaddu marka waxay go'aansatay inaan la siinin wax la yiraahdo liturgical rights ama liturgical rights waxa la yiraahdaa in awliyada macnaha ay Ilaahay iyo dadka wax u dhaxeeya jira kaniisadda Christianity-ga oo aysan ayagu Ilaahay u marin inuusan booskaas u qalmin waayo taariikhdiisii ayaa shaki badan galay markay dib ugu laabteen sidaas ayuu ku yahay. Dabaaldegii marka kaniisadda Christianity-gu ay rabtay inay bedesho oo maalinta jacaylka kaliya ka dhigto ma uusan noqon sidii maanta waqtigan xaadirka marka ay dadka gaalada ay u dabaaldegayaan waxay ugu dabaaldegaan laba nooc labadubana waxay ku dhamaadaan in la isu galmoodo macnaha eriga maalinta ugu leeyahay Valentine's Day Love Day waa maalintii zinada adduunka macnaha xaqiiqdu marka ay tahay marka qof islaam tahay oo qof Soomaaliya tahay waxaad u dabaaldegaysaa maalinta zinada adduunka because ayaga maalintii zinada adduunka u tahay sababtu ayagu zina ma yaqaanaan dhilaysi ma yaqaanaan wax la yiraahdo nin inaag waa isku tay karaan markaas isku tay karaan agtooda marka dhibka ma aha marka aad la dabaaldegto ama aad xaflad la gasho nin asagu dhilaysi uu caadi u yahay oo iska dhaaf inuu naag caadi ka dhilaystay hooyadiis iyo walaashiis iyo gabadhiisa ay caadi la tahay inuu ka dhilaysto marka la dabaaldegto hadda waxaad fahmi kartaa khatarta iyo dhibaatada aad ku jirto maanta markay u dabaaldegaan kooxdii cawaanta ahayd ee hore ee qaabkii ay ugu dabaaldegi jireen paganiskii ka horeeyay waqtiga isaga loo bedelay Pope Gelasius uu ka dhigay St Valentine maalin Christianity ay leeyihiin oo Romanku uu qaatay Roman Catholic ay qaateen 14 February Orthodox Church ay qaateen maalinta July 6 ay qaateen dad ayaa ficilkii qaatay oo qaabkii kaniisaddu rabtay u dabaaldego waxay sameeyeen qaabkaasi gabadhii baad waxaad u soo iibinaysaa ubaxaas guduudka iyo cadaanka isku jira oo ka turjumaya taariikhda hore cawaanta oo ahayd caanihii iyo dhiiggii la daadinayay ama dhar saasaad siinaysaa waad udaysaa maqaayad baad geynaysaa meelahaas iskula soo dabaaldegaysaan hadhowna waxay ku dhamaanaysaa inaad ka dhilaysato qaabkay rabtaba haato inaad ka dhilaysato waayo ninka dhalinyarada markaan Soomaali ahaan u hadlayno ee islaamka intuu gabar kaxeeyo qada soo siiyo caloosh u soo bixiyo guriga intuu keeno inta badan iska bax ma dhahay wuxuu ka rabaa waana qasab in wax ka helo ayaduna waa ogashahay waayo marka qofka mid kale qofka u dabaaldegaya dhaqanka noocaasa oo u dabaaldegaya inay gaal la dabaaldegto maalinta jacaylka maalinta galmada maalinta dhilaysiga u dabaaldegaya waa qof u diyaar waa in laga dhilaysto ama u dhilaysto marka waxa laga yaabaa dadka qaarkiis inay yiraahdaan maya maalintan waa israacayna oo dhalinyarada banaanka no it's not like that ma aha sidaas xaqiiqdu waxa weeyaan haddii aad u dabaaldegto ood maalintaas raacdo ooba ay ka timaadaba inaad u dabaaldegi karto waxaad qasaba inaad sidoo kale ay ka imaanayso inaad dhilaysanaysid marka group saas weeyaan macnaha ninka intuu labisto ama gabadha labisato baxayo xaflad aadayo oo soo dabaaldegaya waxay sameynayaan markay soo dhameystaan ama dhexdeeda inay dhilaystaan waxaa jira koox kaleeto oo ka duwan oo dhaqankii horeeto oo ahaa in meel banaan la isugu yimaado xoolo la keeno dhiig la daadiyo dhiiga lagu qubaysto gabadha magaceeda meel baqtiyaan siiba la galiyo lagala baxo ninku gabadhaas uu meesha banaanka ku fuulo wali way jirtaa laakiin waxay ku sameeyaan meel fagaara kuma sameeyaan meelaha ay kireystaan oo hoolal waaweyn ay ku sameeyaan oo wali waa ka jirtaa wadamadaas westernka America Canada iyo western world waa ka jirtaa dhaqankaasi waa dhaqanka noocaasa Valentine's Day waa noocaas aan u nimaadna marka anagu waxaan dad islaam waxaan dad diinta islaamka haysta haddii aad islaam tahay oo diinta islaamka ah haysato Allah subhanahu wa ta'ala wuxuuna amray in diinta islaamka loo qaato si dhammaystiran in loo galo diinta islaamku ma aha inaad gaalkan la dabaaldegto haddana aad tira islaam ahay ma sax ma diinta islaamku ma aha inaad qaar qaadato qaarna ka tagto waxa Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu amray rasuulkiisa asagoo nagu soo dhiibay inaan gaalada khilaafno wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala na siiyay laba maalmood oo ciida labadaas bis inaan dabaaldegno maalin kale oo ciido oo la dabaaldegi karo oo qof islaami uu ka qayb gali karo ma jiro hadduu sameeyana wuxuu ka soo horjeedaa wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu nagu adoonsaday oo ahaa diinteena islaamka sidaa daraaddeed diiniyan waa qalad inaad u dabaaldegto Valentine's Day ama maalinta zinada adduunka maalinta dhilaysiga adduunka inaad u dabaaldegto waa qalad waxa kale oo aan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed la wadaago haddaad aragto qof u dabaaldegaya ha ka yeelin anigu dhilamay haba ka yeelinba hadduuba u dabaaldegayo ama ay u dabaaldegaysa gabadhii labaduba waa dhilooyin waxayna dhilooyin ku yihiin maadaama ay ka dhaadhacsan tahay ilaa waxa la yiri qofka weelka wixii ku jira ka soo baxa maadaama ay ka dhaadhacsan tahay ama aad ku qanacsan tahay ama aad ogoshahay inaad u dabaaldegto maalinta dhilaysiga adduunka oo aad la dabaaldegto nin gaal ah
oo aad u dabaaldegto xaflad cawaani ay keentay oo laga soo minguuriyo gaal ka soo minguuriyey oo nin bini aadana lagu caabudo oo asaga lagu weydiisto ilaa macnaha asaga la weydiisto la yiraahdo naga caawi inaan galmaduna naga xumaan dhalmaduna naga xumaan haddii aad u dabaaldegto inaad galmooto oo dhilaysato waxba kulama qofkaas waxba lama waayo waxa la fiiriyo qofka bini aadamka tilaabada aad qaadaysid waxay leedahay consequence waxa la dhaho cirbay leedahay haddii aad awood u leedahay maalinta iyada inta baxdo inaad dabaaldegto gabadhii ubax siiso oo iyadu ay ka aqbasho oo ku faraxsan tihiin diin ma haysatid waxaana qasaba inaad dhilaysanaysid waxaan leenahay marka dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha u dabaaldegin maalinta dhilaysiga adduunka dhalinyaradu waa intaas waxa cajiiba marka wax laga naxaa wax lagu labooda nin iyo naag isqabaahay inay u dabaaldegaan maalinta jacaylka ama maalinta galmada maalinta dhilaysiga war Allah subhanahu wa ta'ala hortiisa ayaad isku guursateen xalaal baad isu tihiin waxaad la dabaaldegaysaa nin dhiladu ay asagu ay caadi u tahay midda kale to jacaylku hal maalin ma leh ninka ragga ee islaamka ay u dabaaldegaya inuu jacaylkii ula dabaaldegaya xaaskiisa hal maalin waxa ka qaldan inuu isweydiiyo waa qasab ama bulshadu weydiiso sababtu waxay tahay maalin kasta jacaylka xaaskaagu waa maalin kasta xaasaskeena waxaan jecelnahay maalin kasta laakiin haddii aad tiraahdo hal maalin aan jeclaa xaaskayga waa qalad dhaqankaasi waa dhaqanka gaalada waa dhaqanka jideeyay in hooyada hal maalin la jecel yahay aabba hal maalin la jecel yahay dhilaysigu hal maalin jacaylku u yahay iyo wax noocaasa waa dhaqamo loogu talagalay in lagu ganacsado dadkana lagu xukumo madaxooda lagu celiyo waa dhaqamo loogu talagalay diimaha in dadka looga soo saaro khaasatan diinta islaamka looga soo bixiyo oo la isku keeno inay noqdaan dad noloshooda dhan ay ku xiran tahay adduunka wax kale aan lahayn waxaan rajaynayaa Allah subhanahu wa ta'ala in dambaalkan inuu idin waafaji doono oo aan maanta soo dabaaldegi doonin waxaan rajaynayaa dambaalkan aad si faafi doontaan waxaan u mahad celinayaa wariye xiiray iyo dhamaanba bahda safiirka islaamka daawata oo aan aaminsanahay inay yihiin dad ahlu diina professor Allah ku barakeeyo waxaan noo sheegtaa Soomaali goortii ugu horeysay oo soo gaaray xasuustaada hadii ku jirto xaqiiqdu waxay tahay waxay soo gaartay waqtigii burburka Soomaaliya kadib 1991 kadib ay timid waxaana keenay markii Soomaalida in badan oo kamid ah ay barnaamijda u baxeen la soo dhalan rogay waayo qofka Soomaaliga ah marka uu tago wadamadaas qurbaha waxa ugu horeeyo laga sameeyo waa in Soomaalinimadii laga bixiyo waxa la sameeyaa dhaqan cilis lagu sameeyaa macna anaga hadda waxaan naadaa dadka xagga laga soo celiyo waa la dhaqan celiya la yiraahdaa ayagu markay tagaan ama qofka Soomaaliga markuu tago wadan kale waa la dhaqan celiyaho dhaqanka lagu celinayo waa dhaqanka wadankaas uu tagayo dhaqankooda lagu celiyo waxaad arkaysaa hadda maanta markay meelaha ka yimaadaan qurbaha ka yimaadaan isku dhaqan ma waa kala dhaqan weyn nin wuxuu dhaqankii haystaa Hollandiska nin wuxuu haystaa kii Germanka nin wuxuu haystaa kii America nin kii Canada marka wadamadaasi ayaa looga dabaaldegaa dadkii baa la soo laabtay oo dhaqanka la yimi waxa kale oo ay arinta faafiyo ka qayb qaatay meediyaha oo meel kasta la taagan yahay oo maanta isu furan globally oo aad awood u leedahay waxa China ka dhaca ama ka dhaca meel kasta oo caalam kamid ah inaad ogaatid marka waxay bilaabatay arintani 91 ka hor kadib ay ku bilaabatay shacabka Soomaaliga inay arkaan ama ay fikirkaasi uu ku yimaado waxaana keenay dadkii soo barta dhaqankii xumaa ee westernka ay wadanka soo celi Allah ku barakeeyo waa maasan tahay aqoonyahan professor Sufyaan Sheekh Ahmed oo barnaamijka igana qayb galayay waxaan rajaynayaa walaaluhu inay waanada walaalka dhageysteen kuwii qaatana inuu Ilaahay ka dhigi doono insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa sidaas oo kaleeto inaad sii faafi doontaan oo meel walba gaarsiin ka doontaan waan u mahad celinayaa professor Sufyaan Sheekh Ahmed waxaan leeyahay jazakallahu khayran sida ummadda Soomaaliyeed khayrka ugu sii gudbinaysa adir waxaagu dhalinyarada Soomaaliyeedna inay ka waandoomi doonaan rajaynayaa wabillahi tawfiiq wa salaamu calaykum wa rahmatullahi